asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walbo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray qodobada warka idaacadda AK Axmed Kaarshe aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada NATO oo joojiyay dagaalkii ay kula jireen burcadbadeedda Soomaalida xiisad dagaal oo ka taagan maanta koonfurta gobolka Mudug nin la shaqeeyay Imaaraadka Carabta oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashada oo maanta ka tagay magaalada Cadaado doorashadii aqalka hoose ee Jubbaland oo la soo afjaray Faysal Cali Waraabe oo sheegay in dawladda shisheeye ay faragelin ku hayaan waxa ka socda Soomaaliya wararka caalamkana waxa idinkugu haynaa dhageystayaal madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump oo ku baaqay midnimo qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka idaacadda AK Axmed Kaarshe hasaatee u diyaar garooba qadar adeega bulshada